guddiga isboortiga maamulka degmada Xudur iyo saraakiisha ciidanka xoogga dalka ayaa qayb ka ahaa boqolaal shacab oo daawanayay ciyaarta kama dambayska ahayd oo u dhaxaysay kooxda Horseed iyo kooxda ACF waxayna ciyaartani gabagabo u ahayd horyaal muddo 30 maalmood 6 kooxood uga socday garoonka kubadda cagta Dr. Waberi Stadium ee magaalada Xudur taageerayaasha labada koox ayaa soo bandhigay ciyaaro hidaha iyo dhaqan ay u muujinayeen kooxaha ay kala taageerayeen ciyaartu waxay ahayd mid aad u adag oo garsooraha kaarka jaalaha ah ciyaartoydu ku xakameynayay waxayna qaybta hore ee ciyaarta lagu kala nastay 2-1 oo kooxda Horseed ku hogaaminaysay qaybta dambe ee ciyaarta kooxda ACF ayaa gool bareejo la timid waxaana ciyaartu ku dhamaatay barbardhac min 2 gool ah waxaa loo gudbay gool kulaad waxaana guusha raacday kooxda Horseed waxaana taageerayaasheedii dib ula wareegeen garoonka inta kadib waxaa kooxdii guuleysatay la gudoonsiiyay koobkii iyo hadiyado kale gabagabadii mas'uuliyiintii ka qayb gashay ayaa u hambaliyeeyay kooxda guuleysatay iyo kooxdii laga guuleystay Horseed ka guuleysatay iyadoo faraxsana dhalinyarada kale kooxooyinka kale dadaalka muujiyay oo waana meelan oo dadaalka ku muujiyay in saamaxan in koobka qaadagna iyada ma ilaha iyada ma hasantin kooxda ACF iyo kooxda Horseed oo lamada kooxood hata degmada Xudur in ka adag leero kora ciyaar qurux badan oo faylaha bandhakan iyada ciyaar oo dadka taageerayaalka hanjiidaas dheelan lama ka dhamaatay rigoore ka shalbadeen mayna guul lahaatay kooxda Horseed guul lahaatay kooxda ACF iyada andadaali maylana kooxda badeedina hambaliyo kooxda oo hata geeklu ku badayna maylana banooniyo Horseed badeedi ACF na amaananta kooxaha kale ee isboortigaba waliina hadhowaayaan wali oo garsooryaalka isboortiga iyo gudoomiyaha intaba sida ciyaar wanaag iyo muujiyeen eedahan ka dhawaayaan Maxamed Xasan Abdiraxmaan raadiyaha telefishinka qaranka magaalada Xudur